Dab xooggan ayaa caawa ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho iyada oo ilaa iyo haatan aan la garan waxyaabaha sababay dabkaasi. Lama yaqaano khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay, hase ahaatee olol xooggan ayaa cirka isku shareeray. Ciidamada amniga iyo gawaarida gurmadka degdegga ah iyo dab-demiska ayaa gaaray halka uu dabku ka kacay, iyaga oo isku dayaya inay dabka damiyaan. Dadweyne fara badan ayaa sidoo kale gaaray goobta, hase ahaatee ciidamada dowladda ayaa cirka u tuuraya rasaas si ay dadka aysan ugu dhowaan halista dabka. Booliiska ayaan weli ka hadlin dabkan ka ololaya isgoyska gobolka Banaadir. Dabka ka kaca suuqyada ayaa aad ugu badan Muqdisho, iyadoo dhowr mar ay gubteen suuqa ugu weyn ee magaalada Muqdisho ee Bakaaraha iyo suuqyada kale ee yaryar ee ku yaala magaalada Muqdisho.